كريستيانو رونالدو iyo xil ciyaareedkii kaalma kadib markii Barca iyo Madrid horyaalka ugu qaaday 4 dhibic sidoo kalena ilaad kaga saartay semi-finalka Champions League Jose Mourinho yaa qaaday duulaan dhul iyo cir ah isagoo kooxda ka diray laacibiin uu kamid yahay Emmanuel Adebayor wuxuuna kooxda keenay da'yar mustaqbal kule kubadda cagta laguna magacaabo Rafael Varane sidoo kale wuxuu kooxda keenay Fabio Coentrao lagu daray Callejon uu kala soo wareegay Espanyol muhiimadda koobaad Madrid ee xil ciyaareedkan waa ku guuleysiga Liga Isbaanishka ka oo 3 sano oo xiriir ah ka maqan qasnada kooxda lagu daray Lada Sima Champions League tobanaad ka oo qasnada kooxda ka maqan 10 sano Cristiano waa inuu horyaalka kaliya ka dhaliyaa wax ka badan 35 gool si ay Madrid ugu guuleysato horyaalka 35 gool oo horyaalka 35 gool aad bay u fududahay markii ay gadaashada taagan yihiin Mesut Ozil iyo Angel Di Maria haddaba aan eegno Cristiano Ronaldo iyo xil ciyaareedkii 2011 2000 dadku wuxuu ku bilowday finalka Super Spain Super